qofaa bakaaraha dhexdiisa lagu qabana waa lagu baaranaya mobilka soo bix intii u dhaweyd intay cararaan ay xaq istaagaan isbaar ku dhacay muujeeda isbaar ku dhacay war miya way badan yihiin ma hal mar lagu soo xoomo tuugadan laga celiyo ma la hadla sidii xoolaha banaanka laga istaaga markii banaanka laga istaago qofkii wixii la qaadanay laga qaato oo ay ka tagaan tuugadii oo uu soo baxo dadka soo dhaxgalo ay ku soo xoomayaan maxaa laga qaatay maxaa ka gal wixii laga qaataan laga qaatay war miya marka dadku markay mushkilo muddo ay ku jiraan nafsiyaadkooda iyo maskaxdoodu caadi ma noqonayso midaad koor waxa la qiso waxa jirtay xaafadan ayaa waxa jiray hal nin ayaa wuxuu yaqaanay yaasiinka Soomaalidana qof markuu dhimanayo in la yaasiimay yaqaanan oo yaasiinka lagu akhriyo qofkii yaasiinka aan lagu akhrin oo dhinta waxay yiraahdaan hebel wuu yaasiin saagay wuxuu la mid yahay neef xoolaa oo aan la gowricin oo dhintay markii yaasiinka hadii lagu akhriyo si fiican ugu dhintay laakiin dan yaasiinka lagu akhrino iska dhinto waxa la hebel uu yaasiin saagay xaafadii hal nin yaasiinka yaqaana maalmaha kamida xaafadii shubana ka dilaacay daacun dhimashadii marka si xoog leh u socod halkii nin marka xaafad meeshan oo laga dhimanayo oo qof sakaraad uu ku jiro yaa loogu yeeraa yaasiin soo oraday xaq uu orday markii inuu qof dhimanayo soo yaasiin asoo qofkiiba aan gaarin yaa xaafadii nin ahda laga soo qali yaasiin dhexda intuu istaagay wuxuu yiri wallahi cidaan yaasiin laan u dhamaan doonaan yaasiin ka baran waayaan aniga aan keligay yaasiin laan u dhamaan doonaan kuwan marka waxaan ku keenay Soomaalida waxay dhamaanayaan jaahilnimo maata maytatan jaahiliya xadiidku man maata walaysa fi unuqihi bay'a asagoo aan bay'o iyo system iyo nidaam aan ka tirsanayn qofkii geeriyooda maata maytatan jaahiliya wuxuu dhimanayaa si jaahili u dhimanayaa mid ingiriisa waxa limid oo saas oo aaminsan ma faradna fil kitaab meeshan waxba loogama tagin dhaay ya is arkeen xuna kitaabkeen wax ka soo sheega markaas uu kitaabkiina wax ka soo sheega magacayga ka soo saar kitaabkiina markaas uu magaca adiga wuxuu cook ayaa la dhahaa watarakuuka la bishoogaysaa watarakuuka cook ma sheegaysa magaci ninka ingiriiska oo meesha ka soo saaray watarakuuka ninki hadda waxaan soo xasay asagana xoori muuna tukan jir markaas anina wuxuu niyow lacag aan ku siina tuko wuu leeyahay halkii salaad lacag uu ku leeyahay shan maalmood markuu tukanay yuu lacagteedii markaas uu maanaad tukatay ilaahay aad tukatay waxaan ku siin maleega leex waraan ma tukan jirin adaa diray shaqada ay galiye lacagteedii siiniyo wuxuu waraan waxaan ku siin ma beer baad ii fashay aniga marka lacag ku siinaay markaas uu masaasa adna maxaad ka qaaday weysilaan aan tukan jiray shantii maalmood weyse ma qabin aniga marka Soomaaliya qodax isku jijabay idinka maata maytatan jaahilin ma ka qaadaysaan jaahilnimo baa lagu dhamaanayaa markii si jaahilnimada looga baxo waxa raba qof walba meeshiisa inuu yiraahdo warseen dawlad ku noqonaa midaa safiinaha loo bilaabay hadda koor uu tukan jiray berigii hore markaas safiinaha wuxuu salaad u kala dhigi moogtay si la yaab leh faatixada waxa uu ku akhrinayaa at-tashdiidaat fi al-faatihati فوق الراء وفوق الشين شدك ماشي لساري دن وأنا تصو أخرس الرحمن الرحيم بريقو هران مركو تكنا واسكت دريري جرما الرحمن الرحيم مالك يودي سفيني مركو ساو دمي يوحور إله يو صلاة دي أن تكن جري سفينة كهر أجر كمر ربعه يعني لا يقب سنة إبري هيدو تيور وحان تكن يعني لا يقب سنة مركا sidaas oo kale day jirto oo dadka qaar ka ilayeen la ilaaha illa allah idin hor waxba kama jiree hadda la idin bilaabaya waxaan soo qaadanay muslimnimadu hadda ma ina bilaaban ninka siyaasiga qabiilka wuxuu isticmaalaa oo kaliya jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro haduu rabo jaranjartii laadu ku kiciya dhulku ku soo ridaaya ilaa kor uu ku fuulay moogtahay dib dambe loo ma arkaayo korsu ugu maqan yahay kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan korkii laga soo tuura dhulku iimaana jaranjartii oo dhowr sano ka hor dhulka ku riday
yuu soo qaadanaa meeshuu raba inuu saaro marka haddana oo yiraahdo reerkeeni si xun ah loo galay waxba looma gelin adaa lagu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adile dhuuqay adima waxna siisaanaga wadaadada bariga hore moogtay fiqiga akhriya culimada ah kuwa waxa jiray ka falaagoobo oo aan waxna baranin oo qubuuraha intay wareegaan wax carray wax ka soo qaadaan oo culimada fiqiga akhris waxay dhigeen ruuxan iska dhaafa ويحرم وحا حارانا بناء القبر قبرك إن لا ديسو وتجهيزه إن لا نور هذيو وكان سعيد يجي ورنا لا هذا إذنكم علم ظاهرة تقانان أنا واحد أقول علم باطن اللي هذا أيان قانا وحي سمينا المركب كاسا وحبا أقول الدور كله كجرا قبورها وريجاي وسوق هذا عروك سوق هذا قبر ضدك عامد وكينا مركب يقول لي قبرك أو هبل كي ما هذا مرة هاي مركب واحد أو بعض وجرا وعرّرت وحي كوبان تاي محتويات كذا وعرّ لكن هو عرضان ما دحاي عرض وحوله ورحق يقول له عرض مره به لكن وحوله باشا ما تقنا adiga turaab على dhaha marka turaab maxay tahay waa caradi le way macna arabi le looga dhigay bis ki caamada marka wuxuu ma sha Allah maanta wax fiican ali keenay maxaa lagu keenay turaab ali keenay turaab maxay tahay carad le loo keenay dhadhanka laga qaado marka meeshan maamuladan aad maqlaysaan hebelow ah likulli qabilatin fiha amirul mu'minin kooda u jooga waxa la yiraahdaa dadkan reer galbeedka ah عقل أهان لقى ما عقل بدنه لكن حي سميان قف كذا فاشل كا وحب أوجين أي جعان قبتان إلى أكن نجح شخص دراد العقل قريان قف كان شقي سنين سومالي حتى عملها تتوارتن عير الله قرى الله وفاشل مبتاي وحب ما هيست وحب الله قريان العقل السينايا بعدين كان فاشل كا أي جعان قبنايان حتى ينجح إلى أكن نجح أما إنك وحن سمينا إنه قف كان ناجح أيام بالاش كرفينا حتى يفشل سوء فشلوا خير وحالي ميل توله dad wada in dhal ay degan yihiin yaa mid in qaba oo imaaday markaas markay socdaan markuu arko godadka ay ku sii dhacayaan isma hayn karo wuu qaylina war godka ka leex kii uu isku naxay bariga hore intuu iskaga dhaco iska kici jiray oo iska socon jiray wax godka leex dhigi jiray moona jirin way dhibsadeen marka godka leexashadiisa dhibsadeen waxayna ninkan ugu soo biiray aan ugu nooc ahayn aan isku nooc ka dhigno maalna meel marka martiqaad uu qabay saaso indhoolayaashii ninkii indhaha qabay lagu sheekaysanaayo bay hal mar dhab intay siiyeen iyo labadii indhood ka bixiyeen aan wada fariisanna marka waa kaas godadka aan ku dhacno aan sii soconno taas marka aqligu ma keenayo xilli ay jiri jirtay hadda waa iska dhaafay oo masaajidada tirada ka batay masaajid miyay yaraayeen mise masaajidada maamulkooda isku qabsan jiray markaas mixraabkan waa la kala xoogi jiray bari odayaashu way soo gaareen wadaada marka safku toosinaysa imaam meesha ka intuu xagga ku maqnaa istaw ku hay koo yar leenta ka soo baxay uu galay Allahu akbar salaadii ku jiraab sheekhu uu yaabay bas safkiisu dhinac ka galay dhinaciisu Allahu akbar ta ka wadi waa sidii lagu tukaday kaas meesha xooga ku galay marka salaadii lama aqbalay maxaa loo aqbal way salaadiisa dadweynihii uu ogolaan lahaa oo sharciyada uu saa ku yeelaya siin lahaa ayuu ka talaabsaday كو حالي هدافيده والبحنمده هore moogtahay ya meeshan ceel gaabta jidad kan badan ayuu maray marka inta jidada ka imaada horta jidada ka imaada gadaalna jidada ka imaada dhaxdu socday marka afartii jihaba afar hoon oo baabuur ay kaga soo yeeriyeen markaas dhinac u bood markuu baawara taagan xagga ul markaas dhaxda intuu iskeysta wuxuu dhahay intuu horni horan marka haawam laakiin xagaasi beedwaad dilisay hada raay noqotaa haadu intuu roorni noqon lahayd laakiin meelaan soo markay joogto intuu horan u dhahay marka shacabiyana Soomaaliya waxa haysata war walaalayaal hal dhinac unaga xukuma hal jid unagu jeesiya laakiin haday noqoto inta waa laga amray xagana waa laga soo amray xagana waa hadana waxa la isleeyahay shariicada ma la isku xukumo waaba la wareersan yahay goor ma la isku xukuma horta soo in la fariista ma aha oo bismillaahir rahmaanir rahiim la dhaho oo la heshiiyo oo dadka iyagoo miyir qaba intay soo imaadaan wax kala qortaan المسلمون على شروطهم مسلمين توحي أي شرط إسكال دكتان إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا